Maraykanka ayaa isku diyaarinaya in maalmo gudahood uu ciidankiisa kala baxo Soomaaliya. Haddaba sidee ayay taasi u saameynaysaa ciidamada danab oo iskaashi dhow la leh ciidamada Maraykanka? Waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa afartii bishan amar ku bixiyay in ciidamada Maraykanka ee ku sugan Soomaaliya badankooda laga soo saaro halkaasi horaanta sanadka soo socota. Wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka waxay sheegtay amarkaasi darteed qaar ka mid ah ciidamada in la geyn doono meel ka baxsan bariga Afrika, inta kalena loo rari doono wadamada deriska la ah Soomaaliya si ay u suurto gasho howlgallo laga sii sameeyo Soomaaliya si cadaadiska loogu hayo kooxaha xagjirka ah ee ku sugan Soomaaliya. wasaaradda gaashaandhiggu ma sheegin tirada ciidamada Maraykanka ee ka jooga Soomaaliya, hase yeeshee warbaahinta Maraykanku waxay ku qiyaasaan ilaa 700 oo askari kuwaasoo tababaro iyo talabixin siiya ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab. haddaba waxaa si weyn loo hadal hayay sida bixitaanka ciidamada Maraykanka u saameyn doonto ciidamada danab oo lagu tilmaamo kuwa ugu howlkarsan ciidamada dowladda Soomaaliya. qorshaha dib u dhiska ciidanka Soomaaliya waxa uu ahaa in la badiyo tirada ciidamada danab lana gaarsiiyo ilaa 3,000 oo askari. haddaba kordhintii ciidamada danab ma joogsan doontaa? ma laga yaabaa in ciidamada danab ay kala firdhaan oo ay ku kala biiraan qaybaha kale ee ciidamada dowladda? su'aalahan iyo kuwo kale ayaan weydiiyey khubaro aqoon u leh dhinaca amniga iyo ciidanka iyo weliba taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee Africom. ciidamada danab waxaa markii ugu horeysay la aasaasay bartamihii sanadkii 2013 waxaana lagu aasaasay unug tiro kooban kaasi oo tababar, taageero iyo talabixinba ay siinayeen ciidamada Maraykanka. ciidamada danab intooda badan waxaa lagu tababaraa Soomaaliya, hase yeeshee tiro kooban oo ay ku jiraan saraakiil waxay tababar dheeraada ku qaateen dalka dibaddiisa. gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh waa taliyihii hore ee ciidamada danab, muddada ugu dheerna soo hogaaminaya ciidankaasi. dhismaha ciidanka danab horto waa hawl weli socoto oo weli dhameystirneen. dufacadaha la diyaarinayaa oo tababarkooda kor bay usii socotaa. maalinba maalinta kasii dambaysana awoodooda waxbaa kusii darsamo, iyadoo hoosas lagu guda jiro baa hadda Maraykanka qorshahooda isbedelay. marka meel fogna waa laga yimid oo runtii wax badan baa ku darsamay ciidankaas. haddana waxa weeye howshay qabtaan waa wax muuqato, wax ka badan iyo kasii weynna way qaban karaan. qorshahooda saasuu ahaa. awoodoodu intay leeg tahay hadday noqoto howlgal, hadday noqoto saadkii, hadday noqoto xajinta deegaanada, hadday noqoto inay fuliyaan hawl muhiim oo loo diro, awoodoodu intay leeg tahay? awoodda danab xilligan way wanaagsan tahay runtii. danab waxaa loo diyaariyey inay si fudud oo degdeg ah meel kastoo cadow haysto ay dalka burburiyaan. tababarkoodana aad buu u sareeyaa. har iyo jeerna waxay u diyaarsan yihiin dalka iyo xuduudaha ka difaacaan cadow kasta. danab waxay wada shaqayn leeyihiin ciidamada Maraykanka oo kasoo tababarka ay xilliyada qaar wada howlgali jireen. sidoo kale danab waxay ku tiirsanaayeen ciidamada Maraykanka marka ay noqoto xogta iyo tasiilaadka, sida ay sheegeen khubarada militariga qaarkood. haddaba sidee ayaa go'aankan la bixitaanka ciidamada Maraykanka u saameyn doonaa ciidamada danab? Samiir Axmed Geyd waa khabiir arrimaha amniga qaranka ah, aqoon durugsanna u leh Geeska Afrika. horeyna waxay u soo ahayd la taliyihii dhinaca amniga ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyadoo sidoo kale la taliye u soo noqotay ciidamada AMISOM. waxay sheegtay in tallaabada bixitaanka ciidamada Maraykanku ay si toos ah u saameyn doonto howlgalka ciidamada danab. horta go'aankani kuma soo aadin waqti wanaagsan. waxay saameyn toos ku yeelan doontaa howlgalada weerarada ciidanka, isiba howlgalada la dagaalanka argagixisada, counter terrorist operations. dowladda Maraykanka sidaad ogtahay waxay waqti dheer gelisay sidii ay u tayeyn lahayd ciidamada khaaska ee danab oo hadda ciidanka ugu tayada fiican. ciidamada danab markay howlgalayaan waxay aad uga faa'iideystaan awoodda farsamada ee sareysa ee Maraykanka keento, ha noqoto sirdoon, hawada kala socod iyo xataa taageerada ku kasareysa markay howlgalayaan dhinac socda. iyadoo qayb ka ah tayeynta ciidamada khaaskana Maraykanka waxay ka qayb noqdaan qorsheynta howlgalada waqtiga dhow iyo waqti dheer.
inkastoo aan weli cadaanin saameynta bixitaanka ku yeelan doonto haddana waxaa muhiim ah in la isla meel dhigo mas-uuliyadda qorsheynta howlgalada. waxaa muhiim in la isla waafaqo howlihii hore u socday iyo hagidda howlgalada qorsheysan iyo guud ahaan wada shaqeynteeni. dhanka kale haddii la eego ciidanka Mareykanka waxay si joogto ah xooga u saartaa howlgalada la dagaalanka argixisada oo ay joogtayso cadaadiska saamileyda oo dhan Soomaaliya joogto sida saaxiibada Midowga Afrika iyo xataa daneeyaasha kale oo Soomaaliya si loo xaqiijiyo nabadda Soomaaliya. taasna meesha way ka baxaysaa. sarkaal aqoon durugsan u leh joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya oo diiday in magaciisa la sheego sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo saxaafadda waxa uu galka baarista u sheegay in joogitaanka ciidamada Mareykanku uu gaashaan u ahaa ciidamada danab taasi oo ka ilaalinaysa ciidankaasi inay ku milmaan ama loo adeegsado qorshayaal siyaasadeed. isla qodobkaasi ayaan weydiiyey taliyii hore ee ciidamada danab gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh. waa run laakiin hadda waxaa laga rabaa ma ahan in anaga horto iska dhigno dad aan mas-uuliyad lahayn. Harun ciidamadeenan waxaa weeye runtii waa isku filan yihiin dabcan tababarkii la siinayay iyo taakuleenta iyo maaragtay ay ka heli jireen ciidamada Mareykanka waa wax wanaagsan oo heerkaana soo gaarsiiyey. laakiin ma ahan inaan maaragtay ciidankeenan awoodooda yareeno. dabcan ciidanka danab iyo ciidamada kale xooga dalkaba waa isku filan yihiin inay maaragtay aayahooda ka tashtaan qorshahoodana ay sii wadaan. laakiin dabcan way dhici jirtay maaragtay inay si gaara uga warhayn jireen dabcan maaragtay waxyaalo oo markii arkaan oo khaldan ama waddo khaldan ugu socdo ay u sheegi jireen mas-uuliyiinta dalka. marka taas waxaa laga rabaa marka maxaana laga rabaa dal ahaan iyo dowlad ahaan inaan xil iska saarno oo maaragtay ciidankan waxaa lagu talogalay waxaa waye ciidan burburiyo cadowga oo ciidan fudud ah commandos ah. marka wixii lagu talagalay in loo isticmaalo oo waxyaalo kale loo isticmaalay. galka baaristu waxa uu bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo sida uu saameynaya danab uu ka wareystay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano Africom. gaashaanle sare Christopher Canis waa afhayeenka taliska Africom waxa uu ku adkaystay in inkastoo fadhiga ciidanka Mareykanka uu isbedelayo in haddana howlgalkooda Soomaaliya aanay waxba iska bedelayn ayna meel dhigeen istiraatiijiyada ay taasi ku hirgelinayaan. Our tasks and our commitment to our partners remain unchanged. I think it's important as far as the repositioning of U.S. forces. Al-Shabaab has proven it can adapt. shaqadeena iyo mas'uuliyaddeena naga saaran bahwadaagteena waxba iskama bedelin. waxaa muhiim ah in la ogaado in marka ay noqoto qaadista ciidanka Mareykanka Al-Shabaab inay muujisay inay isla bedeli karaan hadba xaaladii soo food saarta. annaga laftayadu waxaan awood u leenahay inaan isla bedelno hadba xaaladda soo kordha. taas ayaana fulinaynaa. waa muhiim inaad yeelatid istiraatiijiyo kelis ah oo aad kula tacaasho isbedelka. sida aan kuu sheegay hawsheeni waa sideedii. qaabkaan u fulinayno waxa uu noqonayaa mid la qabsada isbedelka. hase yeeshee taageeradii waa ay sii soconaysaa. How we go about doing them will adjust, but support certainly continues. afhayeenka taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee Africom gaashaanle sare Christopher Canis waxaan weydiiyey sida uu arko walaaca ay qabaan qaar ka mid ah saraakiisha Soomaalida ee ah in ciidanka loo isticmaali karo sababo dhinaca siyaasadda ah. Well, as far as it applies to the use of Somali forces, our training program and our interactions with the federal government of Somalia, we stress the professional use of forces, and what you'll find for East African marka ay noqoto adeegsiga ciidamada Soomaalida barnaamijkeena tababarka iyo wada shaqeynta dawladda Soomaaliyaba waxaan carabka ku adkeynaa u adeegsiga ciidanka ee xirfadooda. waxaadna aragtaa waxa weeye wadamada bariga Afrika iyo kuwa gobolkaba waxaan wadaagnaa hadaf guud. waxaana aqoonsanahay inay u baahanayso in la iska kaashado sidii loo dhimi lahaa loona burburin lahaa Al-Shabaab. markaad eegtid sida wadan uu isticmaalo ciidankiisa waa muhiim in diiradda lagu hayo dhimista awoodda Al-Shabaab. waxaana aaminsanahay intaasi ay sii socon doonto. qaabka howlgalkeena Soomaaliya waxa weeye mid ay u dhan yihiin hay'adaha dawladda Mareykanka dhinaca diblomaasiyadda, horumarinta dhaqaalaha iyo difaaca. That will continue to occur. Our approach in Somalia is very much a U.S. whole of government approach. waxaa kale oo aan afhayeenka Africom weydiiyey waxa ku dhici doona saldhigga Balidoogle ee ciidamada Mareykanku ay ku tababarayeen danab.
iyo in danab ay awood u leeyihiin inay sii haystaan Balidoogle. We have confidence in the ability of the Danab. They've demonstrated that they are capable, that they're able to conduct missions. At the same time, we also realize that this is a kalsooni ayaan ku qabnaa awoodda danab. Way muujiyeen inay awood u leeyihiin oo ay howlgallada ku fuliyaan. Waxaan sidoo kale garowsannahay inay la dagaalamayaan cadow halis ah, cadow fursad suga ah, laakiin ma tagayno annagu fadhiga ayuun baan bedelanaynaa. wixii awood ah aan leenahay in aan sii wadno waa aan sii wadaynaa si aan u burburino una dhinno awoodda al-shabaab marka ay ku haboonaato oo ay dawladda Soomaaliya naga codsato. Marka aad al-shabaab eegtid waa cadow halis badan, waxay gacanta ku hayaan meelo kala duwan oo ay joogitaan ku leeyihiin gudaha Soomaaliya. waa mid laga walaaco dhab ahaantii. Markaad eegtid howlgalladeena waxaan doonaynaa inaan xaqiijino in halistu aysan kordhin ama faafin oo aysan saameyn ku yeelan dad kale. annagoo isticmaalayna naqshad caalami ah, AMISOM, danab iyo ciidamada kale ee Soomaalida waxay u baahan tahay dadaal wadajir ah in ugu dambeyn al-shabaab la boqono gooyo, in al-shabaab la gaarsiiyo meel aysan u suurtageli karin inay Soomaaliya siijiyaan mustaqbalkeeda. The NAB, the Somali Armed Forces, it really requires a collective effort to, ultimately degrade al-Shabaab to the point where they're no longer able to rob Somalis of a future. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku waxay sheegtay in kasta oo bixitaanka ay sii socon doonaan weerarada cirka ee lala beegsanayo ururka al-shabaab. dhab ahaanna tan iyo intii Pentagonku ku dhawaaqay ka bixitaanka ciidankooda waxaa howlgalka Africom ay duqeyn dhinaca cirka ka geysteen magaalada Jilib 10kii December. duqeyntaasi oo lagu diray 8 ka tirsan ururka al-shabaab sida ay sheegeen taliska Africom. duqeynta ka dhacday magaalada Jilib waxay ahayd tii 50aad ee sanadkan uu Mareykanku ka geysto Soomaaliya. sanadkii ka horeeyay 2019 Mareykanku waxay Soomaaliya ka geysteen 63 duqeymood. sanadkii 2018 47 duqeymood, halka sanadkii 2017 ay ka dhaceen 35 duqeymood. sanadkaasi 2017 waxaa si aad u kordhay duqeymaha Mareykanku uu ka geysto Soomaaliya, taasi oo la korortay xilqabashadii madaxweynaha Mareykanka ee xilligan jagada haya Donald Trump oo fududeeyay shuruudaha howlgalka. duqeymaha badankood waxaa lala beegsaday ururka al-shabaab, inkastoo dhowr duqeymood lala eegtay ururka Daesh. taliska ciidamada Africom waxay u sheegeen galka baarista in tan iyo sanadkii 2017 ay duqeymahaasi ku dhinteen ilaa 1,000 ka tirsan mintidiinta ururka al-shabaab. afhayeenka Africom Christopher Canis waxa uu galka baarista u sheegay in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen awooddii ururka al-shabaab uu ku qorsheynayay kuna fulinayay weerarada qaarkood. waxay sidoo kale duqeymahaasi xanibeen dhaqdhaqaaqii ururka al-shabaab ay ku baahin lahaayeen howlgalladooda iyo awooddii ay ku weerari lahaayeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM sida uu sheegay Christopher Canis. Africom waxay sheegtay in al-shabaab ay halis weyn ku tahay bariga Afrika oo aysan ahayn oo kaliya caqabad ku horgudban Soomaaliya. haddii aan cadaadiska ku habboon la saarinna shabakadda al-shabaab waxay halisteeda iyo caqabadeeda ku faafaysaa daafaha kale ee caalamka oo ku jira Mareykanka sida uu sheegay afhayeenka Africom Christopher Canis. waxa uu intaasi ku daray in al-shabaab ay tahay halista ugu weyn ee ciidda Mareykanka marka loo barbar dhigo ururada kale ee xagjirka ah ee ka jira qaaradda Afrika. waxay sidoo kale halis weyn ku tahay ayuu yidhi danaha Mareykanka ee bariga Afrika. laakiin bixitaanka Mareykanka su'aasha ugu weyn ee ka dhalanaysa ayaa ah waxa ay mas'uuliyiinta Soomaalidu ka qabteen dhismaha ciidanka qaranka. goorma ayay Soomaalidu isku tashanaysaa oo ay amnigeeda gacanta ku qabanaysaa? su'aalahaasi waxaan weydiiyey Samiir Axmed Geed, la taliyii hore ee ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Khayre, oo intii ay xilkaasi haysay korka kala socotay dib u habeyntii lagu sameeyay ciidanka qaranka, gaar ahaan diiwaangelinta iyo hagaajinta nidaamka ay ku qaataan gunadooda. horta dib u habeynta lagu sameeyay ciidanka guud ahaan waxaan oran karaa meel fiican ay maraysaa. sida la wada ogyahay Soomaaliya waxay ku jirtay 30 sano dawlad la'aan, taasna waxaa u dheeraa in dagaal joogto ay kula jirtay argixisada. marka marnaba ma aha mid sahlan in si fudud ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo, laakiin iyadoo dhibaatooyinkaas oo ay jiraan haddana waxaa dib loo asaasay oo lagu faani karaa in maanta ay jiraan ciidan tayo, tiro, anshax iyo kala dambeyn leh, laakiin oo bilow ah.
dowladda Soomaaliya waxay ugu horeyn ku guuleysatay inay ayagoo kaashanayaan dowlad goboleedyada inay dejiso qaab dhismeedka amniga qaranka taas waa sanadkii 2017 qaab dhismeedkaas lagu heshiiyay wuxuu ka yahay tirada ciidanka qaybaha ee ka kooban yihiin hogaankooda dabagalkooda dhaqaalaha korjoogteynta laakiin heshiiskaas muhiimadiisa waxay keentay in ay banayso dib u dhiska si toos ah in loo bilaabo haddaba si ciidanka qaranka dib u dhis lagu sameeyo waxaa muhiim noqotay horta in shaqada laga bilaabo inuu noqdo dib u habeynta ciidanka markaas jira dowladda waxay daraasad qoto dheer ku sameysay ciidanka sanadkii 2017 ujeedadiina markaas waxay ahayd hubinta tirada tayada iyo diyaar ahaanshaha ciidanka daraasadaas wallahi waxay iftiimisay caqabaha horyaala ciidanka xooga dalka waxayna sababtay in tallaabada labaad ee dowladda qaadatay inay noqoto dib u habeynta qaabka mushaar bixinta ciidanka iyadoo hadda askari iyo sargaal walba la diiwaangeliye oo faraha laga qaaday si mid walba mushaarkiisa u qaato bisha markay dhammaato iyadoo aysan jirin cid uu loo marinayo lacagta maxaa lagu guuleystay maxaase lagu guuldaraystay marka ay noqoto dhismaha ciidanka SNA marka la dhaw maxaa lagu guuleystay dhowr meelood ayaa guulo laga gaaray marka ciidanka si guud loo fiirsho waxaa lagu guuleystay in ciidanka loo dhameystiro baahidooda asaasiga ah sidii mushaarka raashinka qalabka iyo daryeelka howlgabka oo bilow ah laakiin aniga waxaan aad ugu farxay in markii ugu horeysay meesha ka baxday dacaayadii lanagu sheegi jiray oo ghost soldiers mar dambe lama maqli doono ciidan aan jirin oo mushaar lagu qaato ciidanka dalka u adeego kaliya ayaa lagu xisaabtami doonaa oo ayagana haddii ay dhaawac iyo dhimasho ku yimaadaan magdhow heli doona tan labaad maanta ciidanka Soomaaliyeed waxay si toos ah u helaan mushaarkooda iyadoo waayadii hore waxyaalo kala mudnaanta la siin jiray dowladda hadda mushaar bixinta ciidanka ee qarash bixinta uga hormarisaa guuldarooyinkana guuldarooyinka wallahi waxaan dhihi karaa intaas in ka badan aan qaban karnay dib u habeynta iyo dib u dhiska ciidanka hawl sahlan ma aha waa hawl socoto taas oo u baahan wada shaqayn iyo xiriir qaybaha kala duwan ee shaqada ku leh si horumar loo sameeyo waxaan wada qaban karnay howlgalo dheeri ah dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka waxaana weli nagu yar hubka rasaasta iyo qalabka kale goorma ayay Soomaaliya yeelanaysaa ciidan awood u leh hanashada amniga waddanka Soomaalidu waa dad dabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto oo ugu horeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuuridda ciidan la isku haleyn karo sidoo kale wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ee gelin doonaan ciidanka dalka waxay horseedi kartaa in la helo ciidan tayo leh agabkiisa u dhameystiran yahay hanaan karo xuduudaha dalka cirka iyo badda kana sifeyn karo dalka cadowga laakiin aniga ra'yigayga waxaan isleeyahay haddii la isla wado dadaalka 10 sano Soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wada hanta dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah in galka baarista uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawaye Yuusuf Raage balse uusan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu u gudbinay barnaamijkii galka baaristuna waa naga inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo